kadib markii maalintii shalayto ahayd muddo kordhin kala duwan loo sameeyay labada aqal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee golaha wakiilada iyo kuwa guurtida ayaa maraan maanta wax ku weydiinay shacbiga ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal muddo kordhintaasi kala duwan ee loo sameeyay labada gole ayaa waxay gabi ahaanba ka soo horjeesteen muddo kordhintaasi waxayna ay ku tilmaameen in gabi ahaanba sharcigii Soomaaliland la baalmaray waa siday hadalka u dhigeen shacbiga oo arintan ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa magacaygu waa Muxiidiin Maxamuud Aadan Qaalib hadii aan ka hadlo muddo kordhinta loo sameeyay labada gole qaran loo sameeyay xooga aniga fikirkayga hadii aan dhiibto waxa weeyaan labada gole qaran waxaan iimin jirnay horta waxa ay laba shay oo Soomaaliland laba shay baa la iimin jiray labada shay aan iimin jirnay waxa ahaayeen nabadgelyada iyo doorashooyinka oo aynu kaga duwanayn Soomaalida inta kale aan kaga duwanayn waxoogaa tiina waxaad moodaa hadda inay soo gaabanayso maadaama hadii la kordhiyo waxaad moodaa sumcaddii aanu beesha caalamka ku lahayn in waxoogaa ay hoos u dhici doonto waayo doorashooyinku waxay keenaan inay kugu soo dhiiradaan dad badan oo doonarisa oo deeq bixiyayaal inay ku dhaga nuglaadaan laakiin baarlamaankan iyo golaha wakiiladu muddaday fadhiyeen de intaasoo jeer buu xaaraan noqday danna neefku mar hadduu xaaraan noqdana lama cuno inay cadkiisa lama cuno waxaan jeclaan lahayn xaalada maanta lagu kordhiyo oo dalka yaala maanta ma jiro waxa ahayd in lagu dhiirado culayskay doonto ha lahaatee in doorashooyinka sidoodii loo qabto tii deegaankaynu la yaabanayn tii wakiilada ku soo biirtay tii waxa ku soo biirtay inay guurtida wixiiba hadii uu noqdo nin walba meeshuu maalin qabsado inuu wax ku sii darsado wixii aan iibinaynaba wax ka baxaya meesha marka waxaan leeyahay anu muddo kordhintaasi aad wax sumcadeena hoos ugu dhigaysaa inay sumcadeena dunida ku lahayn in caalamka ku lahayn bay hoos u dhigtaan aaminsana ay waa Umar Muumin waxaan kamid ahay aqoonyahanka gobolka Awdal macallimiinta jaamacadaha dhiga special jaamacadda Eelo waxaan rabaa bal inaan wax yar dul joogsado oo ka yar hadlo muddo kordhintan iyo xilkan seetadiisa ninkay gacanta ku haya uu dheereysan karayo nin walba sidoo doono u dhiganayo waayadan u dambeysay waxaad moodaa oo caado bay naga noqotay oo yani wax dadku ay iska nin walba xilligu doono sidoo doono u dhigtan noqotay waashan muddo kordhinta la yiraahdo oo waxa weeyaan adduunyadu waxay ku shaqeysaa sharci iyo heshiis iyo go'aamo meel la dhigto in la ilaaliyo cidda dhigataana hadday ilaalin weydo marka cidii dhigataba hadday ilaalin cid kale oo ilaashanaysa ma jirto Soomaaliland waxaynu ku naqaanay oo inu ku caanamaalay oo adduunyada laynagu bartay oo inagoo waqti yar oo kooban jira waqtigii daayireel markaynu xasuusano inagoo waqti kooban jira adduunyada ay noogu riyaaqday sidaynu wax u wadnay iyo qorshahaynu lahayn iyo missionka iyo sidaynu hawlaheenu u socdeen iyo is-i'tiraafka iyo isdaba joogsiga iyo isqabashada wadanka dhex taala taasina waxay ku imanaysay nin walba hawshii qabanayay iyo sidii uu qabanayay oo sax ahayd oo nin walba hawshiisa uu ka soo baxayay laakiin hadda waxaad moodaa nin walba inuu ana leeyahay oo nin walba uu saytada dheereysanayo muddo kordhin baa baryahan inagu badatay haday noqoto madaxtooye haday noqoto baarlamaan haday noqoto haday xildhibaano noqoto haday guurti noqoto waxaas oo dhanina waxay u baahan yihiin yani qofka kursiga markuu ku ragaado ama uu ku nagaado waqti badan wuxuu moodaa wuxuu isagu leeyahay uu moodaa waxa jira dad hanle oo dhalinyar ha noqdaan ama dad cuqaal ha noqdaan ama dad waaweyn han siyaasadeed ku jiro oo dadka inay u soo baxaan wax u qabtaan raba waqtigii hadii laga kordhisto muddo kordhin laga shaqeeyo muddadii la kordhisto waxay noo kala soconayaan ma jiro anu waxaan taageersanahay fikirka in muddo kordhintaasi dambe aan loo sameeynin waayo oo wadanku hadda xaaladda uu ku jiro ma aha xaalad siyaasadeed ma aha xaalad amni darro ma aha xaalado kale oo dhaqaale saadarteed waxaan jeclaan lahaa golaha wakiilada ee baarlamaanka muddo 2005 baa la doortay waa waqti dheer ilaa haddana way joogaan 6 jeer baa muddo kordhin loo sameeyay saadarteed haddana in muddo kordhin kale loogu sii daro runtii ma taageersani arday iyo mataqaana dad cusub ama jiil cusub baa jaamacadaha ka soo baxay aqoonyahanno cusub baa jooga dad waaya araga jooga dad khabiiraya jooga marka insha Allah dadka in chance la siiyo booska loo baneeyo ayaan taageersanahay marka saadarteed dawladda waxaan oran lahaa inay fikirka kordhinta ay ka deyso oo ay chance la siiyo dhalinyarta cusub ee mustaqbalka cusub
iyo jiilka cusub ee ummadda Somaliland u soo kacday malaynaa sababta keentay in imika la biiriyaan golaha deegaanka iyo golaha guurtida iyo golaha wakiilada inay sababteedu tahay saami qaybsiga oo ka dambeeya oo ah carqalad aan la dhaafi karin sidaa daraadeed baa ku qasabtay ayaan oran karnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo maamulkiisa inay biiriyaan waqtiga ay biirsadaan laakiin horta waxaan malaynaa in sanadka u dambeeya carqaladda xalinayaan sidaa daraadeed ay u sameynayaan inay biiriyaan sanadka u dambeeya si ay carqaladii u xaliyaan dabadeedna ay doorashada u qabtaan saaban u malaynaya fikir ahaan Sakariya Saxane Raya TV Boorama